Soomaali iyaga ayaa waxba isku ogoleen ninka halka kaga muuqanaya waa taqaaniin waa Shamuuri insha Allah iyo ma sha Allah ayuu ku soo baxay laakiin haatan waxaad moodaa markii uu sii kala kacday oo Nairobi uu tagay oo meelo kala duwan uu tagay oo safar kala duwan dhulku maray waxay siimo kala duwan oo ganacsi uu sameeyay isha ayaa lagu hayay isla markaasna dhaqaaqyadiisa Soomaalidu way la socotay bartiisa akoonka haatan aan kula hadlayay ayaa xanibaad laga saaray ninka maskiinka bartiisa gaarka ee TikTok-ga xanibaad ayaa laga saaray baro fiirsada maxay ka faa'iideyaan waa aabe carruur badan ka biilay waa aabe noloshiisa halkaasi ka dhacsanay maxaa laga faa'iideeyay in bartiisa gaarka daawadela xanibaad laga saaro qof walba ka xun ninka maskiinka dhibkaas inuu ku dhaco muuqaalka laga yiraahdo ha sii share gareeyo aragtidaada ku aadan ninka maskiinka oo bartiisa gaarka xanibaad laga saaray iyo wixii kaaga baxay balaalkan ugu wadaag waa tahay daawada Shamuuri sida uu ogtiin bakiiskii sida Cali iyo xaaskiisa Allah u naxariistay ayuu ku soo baxay isla markaasna maxkamadda gobolka Banaadir ayuu kaga soo muuqday ereyaha ku dhig noqday kuwaas ilaa haatan la adeegsado kuwaas way kamid ahayeen insha Allah ma sha Allah ninkan daawada marka soo bixitaankiisa kadib ayaa bargaara loo sameeyay si halkaas uu qutro dururiga qoyskiisa daawada kaga dhacsado bartii TikTok-ga ayuu isbuuc gudihiisa daawada 1 milyan oo follow ku helay isla markaasna oo ku dhaafay dadkii kale TikTok isticmaalayay halkaas ayana saameyntiisa ka bilaabatay haatan aan kula hadlayna safar ayuu Nairobi ku gaaray sidoo kalena safar kala duwan ayuu dalka gudihiisa ku marayay wuxuuna sidoo kale sameeyay xayisiin kala duwan oo goobaha ganacsiga maadaama barta TikTok sida lagu yaqaano dhalinyarada akoomada ku leh shaqooyinkii qabanayeen sidoo kale isagana qabanayay haatan marka aan kula hadlay daawadayaal waxaa soo baxaya marka akoonkiisa gaarka in xanibaad lagu soo rogay isla markaasna ay u muuqan karayso in dad isaga horumarkiisa ku xun ee sidaas sameeyeen taasoo diraysa fariin xaasidnimo maadaama ninkan uu ahaa in qotul dururi qoyskiisa caruurtiisa halkaas ka dhacsanayay isla markaasna il labaad uuna lahayn waxaan u muuqan karaysaa in Soomaalidu wali iyagoo isku sii mashquulsiin isla markaasna qofkii iyaga ka soo dhaxbaxana ay lugaha ku dhigi karayaan bal u fiirsada maxay ka xasdi karayaan waa nin walaalkooda il labaad dhaqaalaan lahayn bartaan ilmihiisa qoyskiisa ka biilanayay maxay kaga faa'iideyaan inay xanibaad daawada ku soo rogaan bal u fiirsada dunida hormartay reer galbeedkii dadka kale ajaanibta si dhaqsila ay isku gacan qabtaan qofkii markaas ka soo dhaxbaxana madaxa ay gacanta saartaan halka Soomaalidana dib u dhac iyo xaasinimo kale hadda kadib ay la baadgoobiyaan Soomaalidana dib u dhac iyo xaasinimo hadda kadib ay la baadgoobiyaan u fiirsada ninkan walaalkooda xanibaadii haatu ku soo rogeen iyaga maxay u soo kordhinaysaa isaguna shaqalaan ay halkaas kaga sii dhigayaan bal u fiirsada waa dhaqanka Soomaali soo jireenka oo wali halkaas ka sii soconay waata daawadayaal maxay kula muuqan karaysaa marka ninkii odaga ah oo bartiisa gaarka daawadayaal laga xanibay fariin noocii ayayna sii diraysaa maadaama dhaqanka noocaan ah oo wali yahay mid sii soconaya dadka sidan sameeyna faa'iido noocii ayayna ka heli karayaan aragtaas ugu ladag dhamaadkada soo gaartana muuqaalka la kilmaamin sina share garay la socodka caafimaad qabka ilkahaaga iyo ciridkaaga waa mid muhiim u ah qof waliba wali ma isku aragta calaamadahan ilkaha oo ku xanuuna in ka badan 1 saac ilkaha oo ku dhiga markaad damacdo inaad cadaydo nabro ka soo baxa ciridka oo guduuta ciridka oo ku barara madaxa oo ku xanuuna way sababto xanuunka haya ilkaha awgiisa waa muhiim inaad dhakhtar ku xidhnaato mar walba aad ka warqabto caafimaad qabka ilkahaaga iyo ciridkaaga bulshada Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaa in dhakhtarka ku takhasusay daaweynta cudurrada afka iyo qurxintooda oo khibrad iyo aqoon waaye aragnimo muddo ku dhex jiray daaweyntooda inuu ka howlgalo isbitaalka takhasusiga ee Somali Syrian Hospital oo ku yaala inta u dhaxaysa isgoyska Digfere Tarabuunka ama wixii faahfaahin aad kala xiriiri kartid lambarada shada kaaga muuqda